السلام عليكم مركلة وعشر كيني برشة ووردكا نو سعودي قيبتي لحد ما هذا مرينا إن شاء الله مركا لاست عشر وحان سمايني عشر في وودن بيي وحان كهليني insertive aan isticmaalaynay sida ma taqaanaa wuxuu ahaa picture loo soo geliyo sida picture loo soo geliyo iyo sida markaa picturekaas meelaha laga soo qaatay iyo waxaas ayuu ku saabsanaa caawa waxaan samaynaynaa waxaan isku dayaynaa qoraal inaanu ka soo qaadano source kale meel kale for example internet haddaa haysatid oo aad rabtid inaad cashar aad ku baraargaraysid aad quickly hesho qoraalkii haddaadan qorin ama uu kuu safe garaysnayn waxaan isku dayaynaa inaan qoraal kasoo koobiyeysano website-dadaas soomaaliga oo kale mid ka mida intaan tagno inaan qoraal kasoo qaadano marka qoraalkaasi aan usoo qaadano waa inaan internetka tagnaa internetkan ku dhufanayaa sug waa kan hadalkana waxaan leeyahay website-dada soomaaliga kii la rabo maxaan aadnaa kee baan tagnaa balse laasi hiran.com okay hiran.com baan tegey waa ka warkaana ugu sarreeya halkan ku jira warkaanu marka waa english somaali hoos u deg wararkii soomaaliga aawa wararkii soomaaliga waa kan dhalinyaro looga sheekiyaa lagu xiro okay maxaabiis bacdeed okay kan ku dhufo waa ka qoraalka soomaali marka qoraalkaasaan qaadanaya waa highlight garanaya gebiisaba waa ka waa highlight baan ku samaynayaa isagoo dhan kadibna waxaan leeyahay right click mouseka dhinaca midig baan click garanayaa copy baa ii soo baxay copy baan ku dhufanayaa wordkayga oo hoos meeshaan ii yaalla meeshaan hoose status barka ayaan ku dhufanayaa waa kan screenkii cidla ah baan joogaa markaa kadibna waxaan leeyahay best baan leeyahay best waka qoraalkii waa ii soo baxay somaali ciwaankii oo kore waa ka ciwaanka inter kala gool waka sidiis isagoo qoran baan soo qaatay si quickly ah oo baad qoraal ku heshay somaali haddaan doon hoos baan usoo degaya inter baan leeyahay waxaan leeyahay sorry best kale mar labaad waka laba page buu ii noqday somaali si marka u fiicnaado oo hal ciwaan u yeesho kaa keliya oo aan loo fahmin waxaan samaynayaa ciwaankaanaan tirayaa dhexe oo kale waa highlight garanaya kadibna waxaan leeyahay delete ama backspace baan taa delete waka marka laba page buu noqday qoraalkii aan soo qaatay labada pagena waa laba page oo dee aan si fudud ku helay warkii website-ka xagga website-ka waa kan halkan oo laabaan highlight gareeyey mousekan right click ku dhuftay copy baa ii soo baxay waa ka copy un baan eri markaa kadibna wordkii oo hoos meeshaan ii furan baan tegey dabeedna waxaan eri best meeshii uu ii oolaa keesukan best ku iri waa kan resultigii waa tana qoraalkaa dheer oo labada page hadda ii yaalla okay marka qoraalka markaan helay kadib dee waxaan samayn karaa waa safe garayn karaa halkan tag safe dheh maxaabiis burcad dot magacii titlekii buu qaatay browwordka geli waxaan dhahaynaa casharkii shanaad buu ahaa kaasu kan waxaan ka dhigaynaa casharka lixaad halka un baan bedelayaa lix baan ka dhigaa casharka lixaad oo muxuu ku saabsanaa warar ama wax kale okay markaasaan leeyahay safe waa safe gareey hadda soo qoraalka خلاص qoraalka marka waxaan rabaan ku samayn karaa jimce abriil 4 ragag maxaabiis burcad badeed dadnimo balabala qoraalkii waa kaa qoraalka marka waxaan rabtaa ku samayn kartaa macna okay caawa waxaan samaynaynaa markaa page layout-kan ayaan xoogaa brass garaynaa meeshaan insertive waa aragnay waxbaan ka aragnay homekana horaan u aragnay waa menugii hore aanu dee ku shaqaynaynay iska standardka ah mar walba kusoo baxayay oo farihii iyo fontigii iyo sizeska iyo waxyaalaha formattingka laga sameeyo okay page layout wuxuu ka hadlayaa pageka iyo sida uu yahay hadda laba page baan haysanaa soo marka pageka hadda standardka ah ee noo qoran kan hadda noo yaalla waxaa la yiraahdaa orientationkiisu waa portrait way halkan laga eegaaday orientation marka ku dhufato waxa ku soo portrait iyo landscape portrait baa hadda haysanaa marka haddaan rabo inaan landscape ka dhigo landscape wuu ballaarinaya taas wuu ballaarinaya dherer ahaan buu u yaraanaya ku dhufo waka wuu ballaartay wuu ballaartay oo markaa rabtid qoraal yaroo kooban oo far waaweyn oo aad rabtid inaad ciwaan ahaan ama warqadda ku ballaarisid baa la isticmaalaa orientationka noocaasa printingka miciisaan uu soo baxaya isagoo ballaaran soo
portrait dan ku celino kii caadiga ahaa dheeraha normal pageska caadiga ee reportska iyo documentsida la qorayo inta badan waa sida tan portraitkaas way ciwaankii halka ku yaal qoraalkii oo socda sababta qoraalku soo habaysan yahay paragraph koowaad kii labaad kii saddexaad kulli inter baa u dhaxaysa soo iskuma dhigana waka waa diyaarsan yahay qoraalkiisu xagga u diyaarsanaa usoo qaadnay xaggan keenay waka waa save garaynay magac baan u bixinay khalaas okay now sometimes waxaad u baahanaysaa qoraalka inaad u qortid qaab columns ah hadda kan waa hal column bes baa noo dooran marka orientationka page layout markaad tagto halkan waxaa ku jira columns inta column aan rabno hadda qoraalkan waxaan ka dhigi karnaa 2 column 3 column 4 column waa kan split text into 2 or more columns okay report markii newspaperada markii akhrinaysid waxaad ku arkaysaa qaabkay u qoran yihiin baa columnska la yiraahdaa marka columns oo kale hadda waa kan ku dhufo 2 column hadda ka dhigno qoraalkan tag waka 2 column buu noqday columnkan xagga bidixda iyo kan midigta noqday oo jeedaa خلاص كلامكii page-kii labaad hal kalam weeye sababtoo ah qoraalka kooban haddii hadda markuu socdo oo hoos u dego oo qoraalku sii bato xaguu imanaya dhag page walba wuxuu noqonayaa 2 kalam saas u kala habaysanaanaya soo okay hadda haddaan 3 kalam ka dhigno maxaa dhacaya page labaad ku noqo columns dheh 3 columns dooro waka 3 kalam buu ka dhigay soo 3 kalam buu ka dhigay waka still kalamkii saddexaad waa jira laakiin de columns page-ka labaad hal kalam kaliya way sababtoo ah haddii qoraal halkaas wax lagaga daro hadda waka kalamka xaggu u gudbaya waa kalam cusub oo bilowday saas u soconaya kalamkii kama baxayo because orientationka ayaa waxaan ka dhignay 3 columns now aye columns ku noqo 2 columns ka dhig waka waa 2 kalam hadda موجود marka qoraalkii aad qoratay hadaa rabtid inaad u qortid news style ama magazine oo kale ama journal oo kale columnska isticmaalaysa 3 columns baa hadda ugu badan kan hadda lefty uu leeyahay leftigu yareynayaa wuxuu weyneenayaa right-ka lefty hadda ku dhufato waka leftiga yar right-ka dhinaca midigtana wuu badinayaa columnka qoraalkooda left to right so wuu ka dhigayaa okay columns ku noqo haddana right more columns hadaa rabtid inta badanaa 3 ka badan ma fiicna laakiin hadaa rabtid ilaa 4 column 5 column baad ka dhigi kartaa more columns here waa kuwa halkan aad ka qaybinaysaa number of columns you can choose adaa dooranaya laakiin hadda ma doonayno page layout columns 3 columns so okay 3 columns 2 columns okay si hadaa rabnaa inaan ku soo celino maxaan sameynaynaa columns ka tagaysaa just 1 column baa ku dhufanaysaa خلاص وكا وراك زيزو كسونو وجد سيف ده خلاص هالكلام واحد وجد marka waka okay waxa kale oo jira oo hadda boobsiis xogaa aan susayna indenting waxa la yiraahdo indenting halkan uu ku qoray waa kan oo page layout marka joog indenting waxa weeye paragraph-kaas ayaan rabaa inaan left indenting u sameeyo left indenting halkaas aad ka dooranaysaa macnaheedu uu soo durkaya qoraalku okay qoraal paragraph oo dhan buu sameeyay soo maad intaas isla socota hadda uu ka dhigay indenting buu ku dhigay 0.5 cm ayuu gudaha soo geliyay macna okay kabaabi 0 ka dhig soo okay indenting halkaas ka dooranaysaa hadda haddaan rabo paragraph-ka kaliya inaan indenting ku sameeyo asaga highlight garanaysa waa highlight garay waxaad leedahay indenting uu socdaa wali so dhan buu indenting garanayaa waay identity only one qayb ka mida intaan oo dhan wuxuu wada socdaa waka awal way soo socday hadda wuu kala haray soo markaan enter series space-kii because qoraalka waa soo qaadanay meel baan ka soo qaadanay season u keenay marka formatting-kii hore uu haystaa formatting-kii hore oo website buu ku habaysanaa marka taas waay uu hadda waa ujeedaa waka halkaas ka dhimaysaa indenting marka waa guda gelin macnaheedu markaad gudaha gelinaysa haddaan rabo leenka kaliya kore kaliya inaan indenting gareeyo waa maxay isaga highlight garanaya soo waa yareeyay hadda waa sii yareeyay paragraph oo dhan buu socdaa okay 0 gaarsii 0 ka dhig indentingka 0 aan ka dhignay soo marka waka orientation-ka waanu aragnay landscape iyo
maxaa kale landscape waa kan soo ballaaran buu noqonayaa waxaan kaloo aragnay portrait oo nadi waa sida caadiga mar walba oo qoraalka uu yahay oo normalka ah garanaysa qoraalaha hadda waa kala duwan yihiin because midna waa indented paragrafyadii hadda ay indented noqdeen marka kuwaan oo dhan hadda indentedka ka saar highlight gare iyagoo dhan sidooda kusoo celi indented ka bixi zero ka dhig okay hadda wada siman yihiin paragraphs oo dhan waa siman yihiin wajida marka save garayso khalaas kana bax wajid marka caawa intaa un baan hadda sameynay intaas practice garee page layout tag orientationka labada dhinac tijaabi columnskana tijaabi noocyada columnska indentingana practice garee halkan waa left iyo right leftigu rightku dhinaca midigtu ka imanaya right feed markaad tiraahdo right indenting waa xagga midigtu ka soo yaraanaya okay xagga midigtu ka soo yaraanaya ma dareemaysa hadda waa inaa highlight garaysaa laakiin labadaba tijaabi okay midda kale waxaan sameynay qoraalkan waanu soo qaadanay website baan ka soo qaadanay okay website baan tagnay ani website tag hadda internet haysato qoraal marka ka soo highlight garee right click copy imagu meesha rabtay paste de markaa ku paste garee waxaad tegaysaa paste waa waxaad tegaysaa home waxaad leedahay paste waa yani copy paste ya inaad meesha ku paste garaysaa kadibna ku practice garee oo tijaabi save garayso waxaa rabto ka bedel khalaas intaas maaragtay ay noo ahaato insha allah waa kaasaa assalaamu calaykum